dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal, maantay waxaan rabaa inaan la hadlo qof walba oo damiir nafeed ku jiro, kuna xihan janaalkan Sahanwade, weliba si deggan oo naxariisu ku jirto. anigoo kala soo hadlaayo meel aad iyo aad u fog, waana qalbigayga. waxaan rabaa inaad su'aashan ka jawaabto adigoo geesinimo muujinayo. ma rabtaa inaad dhaafto imtixaanka dunidan maantayaal iyo caqabadaha kaaga imaanayo nolosha kugu wareegsan? mana rabtaa inaad aakhiro la kulanto Alle subxaana wa tacaala asagoo raalli ka ah maalinta qiyaamaha? dabcan su'aashaadu waa haa. haddaba si taxaddar leh u dhegayso kalaamyadan afkayga ka soo baxaayo. dunidan alla kacabsigu ku yaryahay, dunidan siyaasadda laysku haysto, dunidan muslimnimada laysku dilaayo, dunidan qofkii muslimka ahaa uu gaal ku daba faylaayo si uu dana adduunya uga helo, dunidan cadaaladdarradu qarribtay, dunidan kii liitay la sii bahdilaayo, dunidan kii aqoonta lahaa uusan waxba dhaamin kii ummiga ahaa, dunidan teknolojiyaddu maskaxdii iyo habfikirkii ka dishay dhallaankii soo kacaayay, dunidan masaakiinta lagu gumaadaayo, dunidan qaawanaantu ilbaxnimada noqotay. haddaba waxaa lagaa doonayaa inaad adduunkan sahaydaada ka qaadato si imtixaannadan aan kuu soo sheegay ay ku hareer maraan. dunidan ku joog. qodobka koowaad, cabsida iyo cibaadada Alle subxaana wa tacaala. marka koowaad, isxisaabi, yaa tahay adigu? dabcan su'aashaadu waxaan ahay waa muslim. haddaba muslim maxaa looga baahan yahay? qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay caqiido sax ah iyo inuu raaco dariiqii uu noo jeexay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam. u naxariiso labadaada waalid, xurmee dadka kaa waaweyn, u dhaqan sidii mas-uulkii. waa inaad qaaddaa mas-uuliyadda naftaada, quudi oo wax sii dadka danyarta ah. markaad qof danyar ah wax siiso waa daqiiqadaha ugu quruxda badan noloshaada. daryeel noloshaada, u labiso si qurux badan. salaadda ka dhigo qayb ka mida noloshaada. la saaxiib wanaagsan oo mar walba kaala hadla dhanka wanaagsan. ha la saaxiibin dadka hanka ka dila bini'aadamka. qodobka labaad, u shaqee si adag. waa inaad dhexda u xidhataa si aad dhiiqada dhexdeeda ugala soo bixi lahayd quudkii aad ku noolaan lahayd aayahaaga dambe. shabeelku kama baqaya xaaska haddii ay gaajo hayso. waxa uu ku ugaarsadaa isagoo biyihiisa ku dhex jiro, isagoo og inuu halkaas kala kulmi karo geeri, waayo yaxaaskuba waa ugaarsado dilaa ah. waxaa lagaa rabaa inaad naftaada la dagaalanto, waayo iyadaa kuu diidayso meesha ay guushu kaaga dhowdahay. jiir buurta hortaada taagan si aad u aragto cadceedda ka dambaysa buurtaas. haddii aad shay doonaysid ka dalbo rabbigaaga, si daranna u dalbo. yacnii si daran u dalba markaan ku leeyahay waa si joogtaa, dalabkaagana ku celceli, ha ka daalin. waxaase hubaal ah inuu Alle kaa ajiibaayo, waayo Alle wuu ku maqlayaa marka aad barido, wuuna ku arkayaa marka aad dhaqaaqayso, waana og yahay waxa aad samaynayso. halbowlahaagana waa kaaga dhow yahay Alle subxaana wa tacaala. noloshu kuma qasbana inayna siiso wax walba oo aynu rabno. qodobka saddexaad, jooji xaasidnimada. xaasidnimadu waa cudur. ilaahay ayaana qur-aankiisa noogu sheegay oo wuxuu yidhi, wa min sharri xaasidin idaa xasada. nebi moxamedow ka magan gal sharta xaasidka. xaasidku ma liibaano. haddii aad wax bixiso waxbaad helaysaa, haddii aadan waxba bixinna waxba ma helaysid. aan daawanno faylasuufigan reer jayna waxa uu ka yidhi xaasidnimada. But you don't hate. Hate is a disease. It destroys first your enemy, but you also. It destroys you. Hate. They ask me what is my secret. My secret is a good wife and friendship. Friendship you cannot buy. When I was 8 years old, ka xoree noloshaada xaasidnimada si aad u hesho farriin qurux badan oo kaaga timid Alle subxaana wa tacaala. mar walba dhoola cadday, indhahaagana yaysan ilmayn ilin ay ka muuqato laciifnimo. haddaba maxay tahay nolosha dhabta ah? maxay ka qoreen saynisyahanada caalamka? haddaba si fiican u dhegayso waxyaalahan aan kuu sheegi doono. ujeeddadu noloshu waa in Alle oo keliya la caabudo. tacaburka noloshuna waa in wax la barto.
dabeecadda noloshuna waa in isbeddel la sameeyo imtixaanka noloshana waa in lagu samraa nuxurka noloshu waa daryeel fursadda noloshu waa inaad dantaada garataa qanaacada noloshu waa inaad iimaan xooggan leedahay hantida noloshu waa caafimaad buuxa iyo qalbi qani ah nuurka noloshu waa awlaad baari ah inuu alla ku siiyo guusha noloshu waa guri iyo qoys farxad leh sirta noloshu waa inaad daacad ahaataa farxadda noloshu waa inaad dadka caawisaa weliba dadka danyarta ah quruxda noloshu waa inaad wax bixisaa macaanka noloshuna waa jacayl dhalashadu waa bilowga nolosha dhimashaduna waa dhammaadka nolosha adduunka waa farriin kaaga timid walaalka Saki Cabdi Yaasiin.